السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواذا وراليال إن شاء الله تعالى وان سيدينيا وحير بان ربع وإنا كهدلو وقت دنبه هورتا أنا جايت تحي لكن هذا الآن عاو قرشيه سكوتو يلقلين حقيقة بان كهدليا وحانا السببي برلمانك بلانو مانتا وحان دقيستي xildhibaano kala duwan ay ka hadlayaan arrimo kala duwan marka runtii waxaa saameyn weyn igu samaysay nin la yiraahdo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Puntland oo la yiraahdo Dhaashane cabdi waxaa Dhaashana la yiraahdaa marka anu Dhaashana hadda isticmaalaya naanaystiisa xildhibaankaas arrinuu maanta ka hadlay baa waxaan rabaa horta bal si maaragtay inaan uga hadlo حقيقة runtii waa arrin aniga aad ii taabatay sida uu u hadlayna ma ay ahayn si nin mas'uul oo u hadlo laakiin aniga bal waxaan isku dayaa marka hore inaan falanqeeyo sababta keentay inaan ka hadlana aan idin sheego horta waxaan insha Allah tacaala aan aad maaragtay u bogaadinayaa oo soo dhaweynayaa halkan salaan uga dirayaa madaxweynaha Puntland runtii khudbadii maanta uu ka jeediyay meesha runtii khudba aad u qurux badan bay ahayd aad baanan maaragtay u soo dhaweynaynaa inta markaan ka gudubno waxaan rabnaa bal inaan ka hadalna baarlamaanka maanta wax ku kalifay inuu Dhaashana sida u hadlo arrin waxa laga hadlayay baarlamaanka Puntland ku saabsan dhalinyaro Soomaaliyeed dhalinyaradaas oo markoodii hore la yiri waxa lagu qabtay burcadbadeed oo maxay ahayd toonay wadamo ajaaniba ay qabteen sidii aniga aan u fahmay khudbadii kabacdi dhalinyaradii already wadamadaas baa la soo xirayo muddo ku soo xiraayeen ku soo dhibaatoodeen kadibna wadankoodii baa lagu soo celiyay dhalinyaro badan weeyaan baan u malaynayaa qiyaastooda ma hayo maxay ahayd dhalinyaradii waxay ku xiran tahay hadda Boosaaso markoodii hore waxa loo aanaynayaa inuu dacwadoodu ay ahayd burcadbadeed marka arrinta uu maanta Dhaashana ka hadlay baan horta idin sheegaya horta dhalinyarada Soomaaliyeed adduunweynaha oo dhan bay ku dulman tahay sida badeedu u dulman tahay baa dadkeeduna u dulman yahay dhalinyarada horta adduunka waxaan idin ka hadlayaa badda Soomaaliyeed maxaa marka hore looga kaluumaystaa yaa ka kaluumaysta adduunweynahan ka kaluumaysanaya oo maraakiibta la soo galay oo sharci darrada ku kaluumaysanaya oo waxaan ku iri waxay rabaan daldalanaya iyay u wataan wiilka maanta uu lahaa Dhaashana dhalinyarada Soomaaliyeed oo uu lahaa oo reer Puntland oo uu lahaa maanta lug iyo gacan isdhaafa ayagoo kale la rabay in loo gooyo dhalinyaro la mid ah ayay dadka cadaanka ah ama dadka ajaanibka oo badaha iyaga ka kaluumaysanaya ayaa jaamacadahooda iyo noloshooda iyo future-kooda iyo wadamadooda kaluumaysiga iyo khayraadka badda Soomaaliya lagala baxo ayagaa lagu kabaa dhalinyaradaas maanta badeedii la leeyahay hal la googooyo waa tuuga la leeyahay lagu eedaynayo dhalinyaro la mid ah adduunweynuhu intuu yimaado oo badda Soomaaliya ilaa xeebaha Puntland ilaa xeebaha Soomaaliya oo dhan si alla yaalay sidii la rabo looga kaluumaysto ayaa waxa lagu dhisaa mustaqbalkooda wiil cadaan oo isaga la mid ah ayaa wuxuu ku noqdaa isaga iyo ilmihiisa warshadii iyo nolosha uu ku noolaan lahaa lagu kabaa marka mid baan idinka sheekaynaya wiilashaan yaryarka oo masaakiinta ah oo Soomaaliyeed oo badaha laga qabqabto horta markii la qabto inuu yahay nin miskiin oo kaluumaysanaya oo intuu doon yar iska kaxaysta iska kaluumaysanaya ayaa badanaa ay waxay la sameeyaa maraakiibta adduunka iyo dadka badda jariifka ku haya intay iska soo qabsadaan bay horta waxay dhahaan waa burcadbadeed kuwaas la kaxaystaa la xukumaa wixii la raba lagu sameeyaa kadibna loo soo celiyaa wadankoodii qaarna jeelasha adduunka ay ku dhintaan silica iyo saxariirtaas horta meel walba Soomaali ka haysata Dhaashan oo kala nin la mid oo maanta sidii la ogaa u hadlayay nin la mid ah ayaana dhalinyarada dhibaatada baday marka maanta wuxuu ka hadlayay baarlamaanka Puntland xildhibaankaasi anoo u arkayay in uu runtii khudbadiisu ay ahayd khudba iska dhaaf nin mas'uul ah wax ku hadla oo muwaadila ama islaamnimo xitaa ay ku jirto damiir uu ku hadla aysan jirin dadka uu ka hadlayo waa dad already dibadaha intaasoo sano ku soo xiraa oo xukunkoodii soo dhamaystay kadib baa wadankoodii lagu soo celiyay wadankooda markii lagu soo celiyay adduunweynaha waxa la sameeyaa dadku markay meel inta lagu soo qabto wax badan uu soo xiraado oo wadankiisa dib loogu soo celiyo
waqtigu xirnaa iyo maxkamad baa dib loo saaraa qofkaas already xukunkiisi waaba soo dhamaystay maanta marka waxaan arkay xildhibaan dhaashana oo miiska garaacaya oo dhahaya waa in dhalinyarada noocaas oo kala ama falal dambiyeedka burcadbadeed oo gala diinta islaamka waxay qabtaa lug iyo gacan in la jaro hantidii ay dhaceenna dadkii lahaa loo celiyo dadka lahaa waayo waa dadka 24 sacbadahan Soomaaliyeed bal wiil yar baa waxa lagu leeyahay wuxuu qaatay baa loo celinaya bal iyaga intay maraakiibta soo ka haysteen wax alliyaaliyo wixii khayraad badda Soomaaliyeed ku jiray la baxay iyaga yaa ka soo celinaya waxay qaataan dhibaatada haysata bal ummadda Soomaaliyeed marka xildhibaan dhaashana waxaan leeyahay hal baan rabaa marka ummadda reer Puntland inaan u sheego taariikh yar baan rabaa inaan galo nin walba oo Puntland xukunka yimaada ama wasiir ha ahaado ama xildhibaan ha ahaado ama ha ahaado hay'ad mid loo dhiibay ama mid loo dhiibay meel kale ha ahaadee nin walba wuxuu xadaa shacbiga ku nool meesha deegaanka Soomaaliya oo dhan baa dhibaatada qabta laakiin anigu Puntland baan caawa ka hadlayaa nin walba waxaad arkaysaa xukuumadda markii loo dhiibo mar walbana waa ka hadlaa laakiin caawa dhaashana oo yiri maanta wiilal masaakiina oo qaarkood la yiri waa sakaraad oo xabsiga Boosaaso sakaraad ku yihiin oo xitaa isbitaal bay u baahan yihiin maanta lahaa lug iyo gacan isdhaafa in looba jarayba ahaydba kuwaas oo xabsigana loo sii saa'idiyo kuwaas oo kale maba ahayn buu yiri maanta in laga hadlo arrinay leeyihiin in laga hadlo ma ahayn xildhibaan marka waxaan rabaa inaan si toosa bal aan su'aal u weydiiyo shacabka reer Puntland xildhibaan dhaashane muwaadin waxa weeye reer Puntland qurbaha aanu ka tago ingiriisku ka tagay gaas baa noo geeyay meesha madaxweyne walba masaa'ib buu nagu reebaa masaa'ibkii uu nagu reebay farole waa ogeyn dhaashana wuxuu ka mid yahay masaa'ibtii uu nagu reebay gaas isagoo faramaran oo suud kaliya qaba buu Garowe ka dagtay maantana intuu hanti guriga ku leeyahay Garowe waa la og yahay oo waxaan anigu ku masabidanayo maahan waa wax la og yahay oo life oo loo jeedo xildhibaan dhaashana waxaan leeyahay wiilka yarka oo reer Puntland oo xeebtiisa ka kaluumaysanaya oo inta la qabsaday intaas oo sano wixii la rabay in lagu soo sameeyay la soo xiray waa adiga dhahaya hadda lama sii deyn karo wax weeyaan waana in loo sii kordhiyo waana in la googooyaa waa adiga leh adiga canshuurta reer Puntland iyo masaakiinta canshuurteeda agriyaha ka dhisatay adiga iyo xildhibaannimada kula mid ah iyo wasiirada adiga kula mid oo reer Puntland criminal baatihiin adiga xagee lagu gooynaya marka tir wiil burcadbadeeda lug iyo gacan la gooyo adiga in inta lagu gooyo weeye adigu waxaad istaahishaa inta in lagu gooyo yaa su'aal waxa weeye marka reer Puntland tuuga waxa u taqaaniin oo waxaan arkay badana dadka reer Puntland waxaan ku arkay tuuga waxay u yaqaanaan wiilasha burcadbadeeda lagu tilmaamo oo badooda iyagu ay lahaayeen haday galaan oo ay intuu marka qabsado la yiraahdo wiilashaana la soo qabtay burcadbadeed baa loogu magacaabaa hoteeladay dhistaan lama dego guryahay dhistaan lama dego waa burcadbadeedkii baa la yiraahdaa naanays baa looga dhigay kuwa kan marka burcad nafeeda ah oo wasiirada idin ah oo hoteeladooda 24 saacad ku damaashaadaysaan oo guryahooda aad ku faanaysaan oo hoteeladooda aad xafladaha ku qabsanaysaan oo 24 saac iyagii aad amaanaysaan xagee bay ka keeneen hantida ma waysan iyagu canshuurtii shacabka canshuurtii hooyada yaanyada gadda canshuurtii naagta maskiinta oo qorraxda taagan oo maanta la leeyahay wiilkeeda hala jarjaro ma wuusan maanta waxa dhalaal ka baxaya dhaashane iyo fashuuq iyo dhidid iyo intuu wixii adduunka yaallo dhan uu cunay inuu maanta baarlamaanka soo fariisto dhoo wiilal yar oo reer Puntland hala googooyo oo hala xabiso oo yaa la sii daynin oo miiska ugu garaaco intii kale xildhibaanna ay hoganayso markaan tusaale idiin soo qaado xildhibaanada kaliya tusaale ku filan laaluush baad meesha ku fadhidaan laaluushka xagee laga keenay waa canshuurtii reer Puntland weeye wariyaa marka adiga markaad leedahay mid baatuuga oo bad buu nin cadaan intuu bad wax ka soo dhacay hal jarjaro ama hal dilo adiga midda aad shacabka ka dhacday midda aad guryaha ku dhisatay midda aad ilaa maanta waxaan ku iraahdanka u fadhidid waanu ku ognahay oo xilliga gaas madaxtooyada lagu dhiibo meel lagaaga dhiibo halkaas aad tuuba ku tuuratay ilaa maanta saasaad miiska u garaacaysa adiga marka taadu xaraan ma aha miya war waxa uu yiri hadda ma asagoo hadliya dhageysanay wuxuu yiri culumada
fadhidaa culummadina way fadhidaa oo culummadu adiga kuma aragta miya war hoteelada iyo guryaha aad dhisatay culummadu uma jeeda miya culummada aad markhaati gashanayso wiilasha yararka aad leedahay waa burcad badeed adiga culummada kuma aragta miya adiga xildhibaanka adiga wasiirka ah adiga hay-adda dhacay adiga meel walba liqay culummadu kuma jeeda miya war shacabka Puntland waxaan idin leeyahay ayaan daraa horta ku dhacday ummadii Soomaaliyeed meel walba ay joogto dadka reer Puntland ayaan darada ku dhacday waxa weeye kuwaasa waxay u yihiin mas'uul kuwaasa waxay u fadhiyaan sharci dejintii u fadhiya maanta wiilashaas yar yarka oo Soomaaliyeed oo laga yaabo inay 10 sano ku soo xirnaayeen qurbaha maanta inta boosaaso haddana intaasoo sano lagu haysto iyagoo aan daryeel iyo maxkamad wax allayaaliyo xitaa wax lagu haysto aysan cadayn ilaa kuwa kaluumaysanayo masaakiina baa maalin walba xeebaha Soomaaliya laga qabsadaa markaas la dhahaa waa burcad badeed qaarna waa la dilaa qaarna saano kala loo galaa marka waxaan idin sheegayaa yaa khaa'ina yaa wax khiyaamay yaa wiilka maanta xabiska ku jira mustaqbalkiisii iyo wixii uu wax ku baran lahaa iyo wixii hooyadii canshuurtii laga qaaday iyo wixii guryo iskool loogu samayn lahaa wixii shaqo abuur loogu samayn lahaa yaa cunay marka kii cunay baa maanta ku mudacaya dhaashana maanta ku mudacaya Ingiriiska asagoo qaawan shalay ka yimid maantana intaasoo guryo garawa ku leh baa maanta wuxuu leeyahay wiil yar oo muwaadila waa in la qabtaa gacan iyo lug isdaafa loo gooyaa waxaan idin leeyahay xabiska loo siyaadiyaa hantiday ay dhaceen laga qaadaa lagu celiyaa dadkii laga soo dhacay gaaladii cadaankii laga soo dhacay anigu gaala ma dhahayo dadka nin walba diintiisa ilaahay baa kule okay anigu marka burcad badeed waaba wax fiican ma aha in dadka la dhacana wax fiican ma aha habkay rabto ha ahaato tuugunimadu wax tuugunimo adduunka baneeyay in qof la dhaco gaal iyo islaan ma jiro laakiin yaa cadayn u haya wiilashan badoodii ku jiray nin miskiin oo shaqo aan haysan oo laga yaabo badda saaka inuu qood u raadsaday yaa cadayn u haysta inuu burcad badeed ahaa waxa laga yaabaa inuu soo qori wadan yaa cadayn u haysta anu ma dhahayo burcad badeed ma jirto kuwa burcad badeed jira laakiin yaa cadayn u haya adduunka lama xukumo qofna la iskama xukumo isagoon cadayn loo hayn marka runtii qodobadii uu maanta ka jeediyay dhaashara meesha waxay ahayd qodobo taariikhiyan runtii reer Puntland waxaan rajaynayaa inay reer Puntland ka soo baxaan dad wax qora oo isku daya dhaashara iyo wax la mid ah in historygooda la qoro iyo nin walba oo Puntland hantideeda iyo canshuurteeda ku takrifashay insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa inaanu ka qorno buugaag waxaan rajaynayaa hadalka dhaashana maanta uu yiri wiil reer Puntland oo miskiina intaasoo sano cadaan u soo xiraa maanta wadankiisii ha lagu sii jarjaro waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala in historyga lagu qori doono wax dhaxal galana ay u noqoto Puntland